Mareykanka iyo Ruushka ayaa xoojinaya joogitaankooda bariga dhexe xilligan oo xiisad weyn ay u dhaxayso Israa'iil iyo Iiraan kadib dilkii loo geystay hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya. Iiraan ayaa wacd ku martay inay Israa'iil ka shallaayi doonto shirqoolkii ay ku dileen madaxii xafiiska siyaasadda ee Xamaas, taasi oo keentay in Mareykanku uu gobolka u diro maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka iyo ciidamo fara badan iyadoo markaasi Israa'iil la difaacayo. Wararka ayaa sheegaya in dalal aan doonin in la magacaabo oo xulafo la ah Mareykanka ay qalab militari ku daabulayaan Israa'iil, isla markaana suurtagal ay tahay in la weeraro Iiraan iyo ururada hubeysan ee gobolka ee ka soo horjeeda duulaanka Israa'iil ee marinka Gaza. Sidoo kale militariga Ruushka ayaa la soo sheegayaa inay kordhiyeen dhaqdhaqaaqooda Iiraan ayna geynayaan nidaamka difaaca hawada ee S-400. gantaalaha nidaamka horumarsan ee Ruushka ayaa qayb ka ah qorshaha ay Tehran ugu diyaar garoobayso inay isaga difaacdo haddii uu weerar kaga yimaado Israa'iil iyo Mareykanka kadib weerar ay damacsan tahay in ay kaga aargudato Israa'iil. Warbaahinta caalamka ayaa ku soo waramaysa in Ruushka uu dhowr cisho ka hor bilaabay inuu raadarada iyo qalabka difaaca hawada u keeno Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Warbaahinta ayaa sheegaysa in Moscow ay sidoo kale khubaro heerkoodu sarreeyo u dirtay Tehran iyada oo kala shaqeynaysa meelaha ku habboon in la dhigo gantaalada difaaca hawada. Wargeyska The New York Times ayaa daabacay in Iiraan ay codsatay qalabkan, Ruushkuna uu darbadiiba bilaabay inuu keeno caasimadda Tehran. Dowladda Iiraan ayaa horey u xiiseynaysay inay hesho gantaalada S-400 oo ah nooca istiraatiijiyadda ee riddada dheer. Iiraan ayaa sanadii 2016 Ruushka ka iibsatay gantaalada riddada dheer ee hanaanka difaaca hawada ee S-300 oo uu sameeyay Midowgii Sofiyeeti. Iiraan hadda waxa ay danaynaysaa inay si dhammaystiran u hesho diyaaradahooda dagaalka ee Ruushka ee Su-35 si loo geeyo saldhigga ciidanka cirka. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei oo iska leh go'aanka ugu dambeeya ee Iiraan ayaa sheegay in qarankiisa ay waajib ku tahay inuu u aargudo hogaamiyihii Xamaas ee martida u ahaa. Ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Andrei Nastin ayaa sheegay in gobolka uu qarka u saaran yahay iska hor imaad caalami ah. Ruushka ayaa ballan qaaday inaysan meel cidla uga dhaqaaqi doonin Iiraan oo ay u arkaan xulafadooda ugu muhiimsan ee gobolka. Xogayaha golaha amniga Ruushka Sergey Shoigu oo isniintii ka degay magaalada Tehran ayaa la kulmay madaxweynaha Iiraan isagoo gaarsiiyay warqad uu uga siday madaxweyne Vladimir Putin. Labada dal ayaa xoojinaya iskaashigooda difaaca maadaama labaduba ay si isku mid ah u hayaan xulafada reer galbeedka oo Mareykanku uu hogaaminayo. Warbaahinta Mareykanka ayaa warinaysa in Washington ay si dhow isha ugu hayso dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka ee gobolka, isla markaana ay ka walaacsan tahay. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in Washington iyo Moscow ay ka fogaan doonaan in ay si toos ah ugula dagaalamaan bariga dhexe, balse ay si dadban ugu lug lahaan doonaan dagaal kasta oo gobolka ka dhaca. Taasina ay suuqgeyn u noqonayso hubka ay soo saarayaan. Dhowaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa Mareykanka ku eedeeyay siyaasadiisa bariga dhexe ay gobolka ka abuurayso rabshado aan horey loo arag. Lavrov ayaa sheegay in xiisadda sii kordhaysay ee ka jirta gobolka ay la xiriirto colaadda Gaza, isagoo Israa'iil ku dhaliilay inay si toos ah ciqaab wadareed ugu hayso 2.3 milyan oo qof oo ku nool marinka Gaza. Taageerada indho-la'aanta ee Mareykanka ee Israa'iil waa tan keentay in xukuumadda Tel Aviv ay geysato nooc kasta oo xadgudub ah iyadoo aysan jirin cid la xisaabtamaysa, sababtuna tahay Mareykanka oo la garab taagan taageero militari iyo mid siyaasadeedba.